صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. وبيجك إيوه بيره سامينتا BH كعرض كلية دلقية كلا دوان ومحي BH وعبر له استعماله أصير نمذا أما الكلين نمذا ملان كلا دوان BH وحوليه هي عبر كبل لوضة حل إلى أفريا طبعا هذه عبر BH كلية هي تضبط وحدحات معناها أصير نماهن بيس نماهن هذه وكيره تضبط سدا إبر إلى لحية بر وعاصد هذه وكبدية تضبط سدا تضبية بر إلى أفريا طبعا والكلي أما بيس بالفيري كالقال كان أما جدول كان بالسفي عنو فيري كو وعاصد كعلوشة لأن أنت بيج كده واتو عصير كتفاحة وصدح عصير كيان يدا وافر بونكا وحقاريا شن عانها وحقاريا لح halka biyaha BH-koodu ka yahay 7 waa dhexdhexaad ukuntu waa alkali waa 8 faxisada ama baking powder waa 9 saabuunaha solution-ka ah waa 10 ayay gaarayaan halka ammonia ay ka tahay 11 warankiila ama bleach-ku uu ka yahay 12 milanka riban oo alkaliga ah isaguna wuxuu u dhaxeeyaa 14 ilaa 13 sodium hydroxide oo kale marka aan tusaale u soo qaadano marka qaybta guduudan waa acid markii xagga midig la aadana waa base تضرب مركات في رسنا وادحدحات أسدنا معهن بيسنا معهن بيجك إيو بعرمياشة عريا والبا أو بعرمياشة كجرة سيدا نيتروجين فوسفورس بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم سلفر ايرون زنك iyo wixii la mid ah wuxuu leeyahay pH gaar ah oo uu ku shaqeeyo ama dhirtu ay nuugi karto kana faa'iideysan karto curiyahaas haddii cabirka pH-ku carrada ama biyaha uu ka bato ama ka yaraado lambarka BH-ka curiyahaas u gaarka ah dhirtu ma awoodi karto inay nuugto ama ka faa'iideysato curiyahaas sidaa daraadeed waxaa suuragal ah iyadoo carrada uu ku jiro xaddi ku filan oo curiyo gaar ah haddana inay dhirta ka muuqato in curiyahaasi ka maqan yahay ama ku yar yahay xataa haddii aad ku shubto curiyahaas mar kale waxaa suuragal ah inay weli kasii muuqato in curiyahaasi ku yar yahay dhirta ama ka maqan yahay taana waxaa sabab u ah BH-ka oo ka yar ama ka badan lambarka BH-ka ee curiyahaasi ku shaqeynayay ama dhirta uu u fududaan lahaa inay nuugto BH-ka ay curiyaashu kala duwan ee carrada ku jira ama bacrimiyaasha ay ku shaqeyn karaan curiyo kasta wuxuu leeyahay xuduud go'an oo BH ah ay xididada dhirta si sahlan uga soo nuugi karaan carrada haddii BH-ku ka bato xaddigaas ama ka yaraado xididada dhirtu ma awoodi karaan in ay soo nuugaan curiyahaas bal fiiri shaxda hoose shaxdan haddaad u fiirsato waxaad arkaysaa aan ka bilowna nitrogen waxay si fiican ugu shaqeynaysaa ama dhirtu ay u sahlantahay inay nuugaan BH-ka ah 5 ilaa 8 halka phosphorus uu u dhaxeeyo 6 ilaa 8 potassium iyo sulfur waxay u dhaxeeyaan 5 ilaa 10 ayay u dhaxeeyaan halka calcium iyo magnesium ay u dhaxeeyaan 6 oo ah acid ilaa iyo 9 oo ah alkali intaas ay ku shaqeyn karaan sidoo kale iron 3 ilaa waxay u dhaxaysaa 3 ilaa 6 halka manganiisna uu u dhaxeeyo manganiis boron ay u dhaxeeyaan 4 ilaa iyo 7 sidoo kale copper iyo zinc waxay ayagu u dhaxeeyaan 4 ilaa iyo 7 ay u dhaxeeyaan molybdenumna wuxuu u dhaxeeyaa 6 ilaa 10 ayuu u dhaxeeyaa fiiro gaara shaxdani ma ahan 100% ee waxay noo soo dhaweynaysaa xaqiiqda mandiqada guduudan dhirtu ma nuugi karaan curiyahaas mandiqada jaalaha ah dhirtu si gaabis ah ayay u nuugi karaan halka mandiqada cagaarka khafiifka ah dhirtu si fiican ay u nuugi karaan curiyahaas BH-ka ay si sahlan dhirtu uga soo nuugi karto carrada curiyaasha ay u baahan tahay waxaa muhiim ah in mar walba lala socdo BH-ka carrada iyo kan biyaha lagu waraabinayo beerta maxaa yeelay wuxuu saameyn toos ah ku leeyahay ka faa'iideysiga dhirta ee nafaqada ku jirta carrada ama bacrimiyeyaasha kala duwan ee loo isticmaalayo nafaqeynta dhirta ma jira BH dhammaan curiyaasha ku jira carrada ama bacrimiyeyaasha ay dhirtu si sahlan uga soo nuugi karayso carrada jawaabtu waa haa jadwalkii hore wuxuu ka koobnaa 3 qodob oo kala ahaa mandiqad guduudan oo geedku uusan awood u lahayn inuu soo nuugo
bacrimiyaasha mandiqad jaalla ah oo geedku si gaabisa u soo nuugi karo bacrimiyaasha ama curiyayaasha iyo mandiqad cagaaran oo geedku si fiican u soo nuugi karo marka aan aragna marka pH-ka ay dhirtu si sahlan uga soo nuugi karto curiyayaasha nitrogen potassium iyo sulfur waxay dhirtu si sahlan u soo nuugi karaan pH-ka u dhaxeeya 5 ilaa 8 halka phosphor calcium magnesium ayaga ay u dhaxeeyaan 6 ilaa 9 pH-ka u dhaxeeya ay dhirtu si sahlan u soo nuugi karaan halka curiyaha birta ama iron uu pH-keedu yahay inta u dhaxaysa 3 ilaa 6 ay dhirtu soo nuugi kartaa manganese iyo boron pH-ka ay dhirtu u sahlantay inay soo nuugaan wuxuu u dhaxeeyaa 4 ilaa 7 halka maarta ama kobarka iyo zinkiga oo u dhaxeeyo pH-ka uu dhirta u sahlan yahay inay soo nuugaan 4 ilaa 7 halka olbidiumka uu yahay 6 ilaa 10 waxa halka inooga muuqanaysa in pH-ka ay ku shaqeyn karaan dhammaan curiyayaasha ku jira bacrimiyaasha inuu yahay 6.5 ayaa wuxuu yahay pH-ka dhammaan elementyada dhan si sahlan ay dhirtu ugu qaadan karaan marka waxa dareemaysaa pH-ku haduu 6 aad uga bato curiyayaasha qaar aysan geeduhu nuugi karayn haduu aad uga hoos marana curiyayaasha qaar aysan geedku qaadan kari doonin sidaa darteed carrada aad beerta ku ka dhiganayso waa inaad pH-keeda ku kontarooshaa 6 iyo 7 waa inuusan ka badan halkan si fiican u fiiri waxaad arkaysaa dhammaan curiyayaasha oo dhan lambarka ay mandiqada cagaaran ku wada jiraa waa 6 iyo 7 sida halkan kaaga muuqata si fiican u fiiri 6 iyo 7 dhammaantood way ku shaqeynayaan 7 markii la gaaro curyaha loo yaqaan iron wuxuu noqonayaa xarij ama dhibbo ku noqonaya si fiican uma qaadan karo 7 marka la gaarana iron maba qaadan karo dhinaca kale markaad fiiriso 6 waa caadi dhirtoo dhan way qaadan karaan marka pH-ka ugu habboon waa inuu dhaxeeyaa 6 ilaa 6 ugu badnaan waa inuusan 7 dhaafin waxaa jira marka pH-ka see loo cabiraa waxaa jira aalado kala duwan oo lagu cabiro pH-ka sida warqada loo yaqaan litmus paper-ka waa warqada halkan kaaga muuqata markii acid ama base la geliyo midab kala duwan ayay samaysaa waxa kale oo jira warqad litmus ah oo laba midab leh midna blue tahay midna guduud tahay ayaguna waxay ku kala sheegi karaan acid iyo base kaliya waxa kale oo jirta warqad ayadu awood u leh inay midab kala duwan ku siiso si sawirkaaga muuqata midabadaas ayaa waxaad ka aqoons ku akhrinaysaa jadwalka lagu siiyay ayaa waxaad ka fahmi doonaa pH-ka meesha uu joogo sidoo kale waxaa jira milan la yiraahdo universal solution asaga weelka solutionku ku jira ama biyihii ama milankii aad ka diyaarisay carrada ayaa waxaad ku dhibcinaysaa dhibic ka mid ah solutionka loo yaqaano universal kadibna wuxuu ku siinayaa midab u dhaxeeya guduud tiq ah oo acid ah ilaa base oo ah blue marka bluegan ilaa guduudkan inta u dhaxaysa midab uun ah ayuu ku siin doonaa midabkaas ayaa waxaad ku akhrin doontaa jadwalka sida kaaga muuqata dhalooyinka sawirka kaaga muuqda ood arkaysid inay midab kala duwan leeyihiin mid pH-kiisu waa 14 mid waa 10 mid waa 7 oo waa dhexdhexaad mid waa 5 mid waa 1 midka koowaad waa guduud halka midka pH-kiisu 14 uu ka yahay blue tiq uu ka yahay halka 7 kana uu ka yahay dhexdhexaad biyaha u eg sidoo kale waxaa jira aalado digital ah oo lagu cabiro pH-ka la kuna siinaya lambaro tiro ah oo la akhrin karayo مثلا aaladan dhinaca bidixigta marka aan fiirino 3 in 1 waxa lagu cabiraa saddex shay waxa lagu cabiraa iftiinka qoraxda ayaa lagu cabiraa oo waxay leedahay sensor dareemaya ilayska sidoo kale waxay leedahay lagu cabiraa moisture-ka iyo pH-ka moisture-ka iyo pH-ka labadaba waxa lagu cabiraa labadan birood ayaa ciidda la dhex qotominaya kadibna switch-kan ayaa midig iyo bidix loo dhaqaajinaya marka sunlight-ka cabiraysana dhexda ayaa la istaajinaya kan waxa loo isticmaalaa kaliya carrada qoyan ayaa pH-keeda lagu cabiraa halka aaladan dhinaca midig ka muuqata ayada lagu cabiro pH-ka solutionada ama dareerayaasha biyaha soo qaadaysa sida aad arkaysid baa weelka ugu shubaysaa kadibna aaladii ayaa daaraysaa waad gelinaysaa lambarkan ayaa kuu soo baxa lambara ayay ku siinaysaa akhrisyo kala duwan bay ku siinaysaa akhriskaasi direct wuxuu u sheegayaa nambarka pH-ka hadda pH-ka meeshan akhriskiisu nooga muuqdo waa meeqa waa 6.75 macnaheedu 7 ayuu ku dhow yahay waa dhexdhexaad جزاكم الله خيرا عشركنا maanta intaas ayuu ku egyahay hadii casharka aad wax ka faa'iiday fadlan ha ku bakhaylin inaad tiraahdo subscribe inaad like tiraahdid inaad walaalaha kale la wadaagtid si ayaguna uga faa'iideystaan
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.